garoonku waa garoon aad u qurux badan waxaan aad uga helay garoonka marka nalkiisa la damiyo markaas wuxuu yeelanayaa qurux ashcaar aan laga hadli karin buu yeelanayaa saa u jeedaan hanaan haybad kaal iska arag tigidhka qaabka lagu helo waxa waaye iyo qiimahan ka bixiyay marka idin sheego tigidhka waxa lagu helaa ninkii ugu horeeyay aan dhalaya youtubera facebookera tiktokera oo koob adduun tagay dala ku sii qaaday in culay aan dhalay maanta adduunyada Soomaaliya hore aan qaraxsanaa adduunyada maanta ka dhaqay Germany goal ala la socdo bacala sida ku yaal warna alla shaydaan ku yaal soo dhawaada waxaan vlog qiimo badan idin ka soo sameeyay qaabka uu qofku u soo daawan karo ciyaaraha koobka adduunka ee ka socda dalka Qatar qiimaha tigidhka garoonka lagu galo qaabka uu qofku garoonka ku gaari karo iyo arrimo kale oo muhiim ah oo amuurta ku saabsan waa sheena culay oo ka codsanaya janaalkiisa YouTube inaad subscribe saarto bartiisa Facebook follow soo tiraahdo videoga si share gareyso like iyo commentigana iga soo badiso horta marka ugu horeysa waxa u baahan tahay hadii aad doonaysid ciyaaraha socda laba xul oo wada ciyaaraya inaad garoonka ku soo daawato ugu horeyntii waa inaad tigidh hesho tigidhka qaabka lagu helo iyo qiimihiisa barnaamijkan intiisa damaan uga hadli doonaa waxa u baahan tahay ugu horeyntii inaad istiyaariso garoonku meesha uu ku yaalo waa inaad ogaatid sababtoo ah garoomadu kuma wada yaalin dooxa kuma yaalin waxaa jira kuwa ka baxsan xataa dooxa laftigeedu waa magaalo weyn marka waa inaad maaragtay ugu yaraan waxa u baahan tahay 2 saac ka hor inaad isii abaabushid xilliga ay ciyaartu bilaabanayso anigu ciyaarta aan hadda daawanayo oo soo daawaday oo vlogga idin ka soo sameeyay waa ciyaartii dhex martay Spain iyo Jarmalka oo runtii xiisa gaar ah lahayd ciyaartaas waxay dhaceysay 10ka fiidnimo waxay ka dhaceysay meel ka baxsan magaalada Dooxa oo qiyaastii ilaa 60 kilomitir u jirta marka waa istiyaariyay waa is abaabulay halkani waa hotelka aan ka deganahay magaalada Qatar waxaan wacday gaari baan wacday Uber baan maaragtay online ka booking gareystay magaaladu waxay leedahay Uber bay leedahay sida ugu haboon ee garoomada aad ku gaari kartana waxa weeye inaad isticmaashid gaadiidka dadweynaha tareemada iyo basaska hadaa leedahay gaari baan gaar u qaadanaya ama Uber oo kale ama taxi oo kale ama gaari caadi aan raba inaan garoonka ku tago waa saxmad badan wadooyin badanna waa xiran yihiin waa kugu adkaanaysa marka waa ku tagi kartaa laakiin waxa ka qurux badan oo ka fudud inaad gaadiidka dadweynaha oo dawladda Qatar ay muddo badan ka sii taxadaraysay oo maaragtay bilaayin ku sii bixisay inaad isticmaasho anigu hadda gaariga kan qaadanaya waa gaari Uber oo aan dalbaday wuxuu geynayaa maxadada maxaan ku raahdaa igu dhow ee laga raaco mitraha dhulka hoostiisa mara ee isagu dar ilaahay isu wada kombiyuutarada wada la yiri ilaahay nagu badbaadiyo halkan soo gaaray waa mitraha maarta stationkiisu wax laga sheekeen kara maaha macnaha qaabka u dhisan yihiin quruxdooda horeyna waa idin ka sheekeeyay haddana waa ila arkaysaan mitri waa buuxa taageerayaasha Germany iyo taageerayaasha Spain oo garoonka ku sii socda ma iska helnay waa u jeedaan iyo dad kale oo haday doonaan maxaan ku raahdaayay aan taageersanayn labada midna laakiin doonay ciyaara inay soo daawadaan dadku waxay isugu jiraan dad dalkan Qatar degan iyo dad dibadda ka yimi marka mitri baan fuuleena saasa saxmad uu yahay 3 daqiiqo oo kasta waxa soo istaagaya mitra soo istaagaya marka hadduu noo soo istaagay waa u jeedaan waa galay mitraha dhexdiisa runtii ciriiri badan kama jiro waxyaabaana u sababta waxa waaye xilliga aan anigu soo baxay baa xilli horeeta ah sidoo kale mitruhu 3 daqiiqo kasta waa soo istaagaya marka 3 daqiiqo kasta markuu soo istaagayo waa garan kartaan sida dadka uu qaadayo mar walba saan idin sheegay isaga isu wada dhexdiisaan taaganahay calamadii Spain calamadii Jarmalka ka buuxa maxaan ku yiraahdaayay dadkii waa kuwa asaas u wada tuban yihiin waa la taagan yahay qof nasiib leh ama maaragtay baa inuu fariistaba maaragtay meel fariisto hela inta badan waa la istaagaa marka waxaan ka bedelanayaa maxadal dhaho Lusail waa magaalada qaybta ugu qaalisan waa dadka alla waxsiyaa diga waa qayb cusub qurux ascaar iyo midabo gooniya bay leedahay waa u jeedaan waa magaalo aan laga hadli karin xaafadaasi dooxa ku taala marka hadda tareenkii waa ka dignay waa lugeynayna Lusail aan uga dignay waxaan qaadanaynaa marka basas ay FIFA leeyihiin tareenku waa free basasku waa free mar hadda tigid haysatid marka waxaan rabaa inaan idin sheego tigidka laftigiisa
maaragtay kaliya garoonka kuma geli kartid waxa u baahan tahay bahal yiraahdo haya car ama fan ID haddii aadan fan ID ga wadan tigid kasta wato garoonkana ma geli kartid tareenka iyo basaskana si bilaash kuma qaadi karaan basaskii baa hadda saf ugu galnay basaskii waa kuwaas waa tiro badan yihiin sidii taramadu u badnaayeen bay u badan yihiin bas baa hadda fuuleynaa basku wifi buu leeyahay waa habaysan yahay hanaan gaara buu leeyahay isaga laftigiisu adduunka la weeye lagama hadli karo basas wada brand new ah FIFA loogu talagalay dawladda Soomaaliyeed waxa ka codsanaya bacdama qadar xiriir fiican aan lahayn kulay basaska World Cup markuu dhamaado garoomada uma baahna basaska uma baahna maaragtay waxay rabaan inay dad dalal badan ugu tabarucaan say sheegeen marka iyo tasjiilaad badan oo hadda yaalaba dawladda Soomaaliyeed waxa muhiim ah inay ka faa'iideysto oo maaragtay dalalkaas maaragtay iyadoo xiriirka wanaagsan qadar la leedahay ka faa'iideysanaysa bacdama dal caraba muslima walaala aan hay u yahay ay maaragtay garoomada oo kale to aan saamigeena iyo basaska iyo maaragtay agabka kaleba saan uga helahayn ay hadda u kaaba gasho baan ku dhiirigelinayaa baski baan ka soo degnay garoonki waa ka garoonkii saas dadku saasa quraanyo dhaqaaqday baan moodaa saasa maaragtay la isu jiirayaa marka garoonki waa kan dadku safay ku jiraan maxaan ku rahay saf aad looga taxadiray way qof ka leexan kara male qof jiiri kara male qof ka hormari kara male dadkuna asalkoodaba markooda loo iska nidaamsan yihiin hadda waxaan soo galaynaa maxaan ku raahdaay intaan garoonka galin halakan waxa ka qaadan kartaa waxba ka cabi kartaa waxba ka cuni kartaa ka bacdi safkii waxaan u galay sidii aan garoonka u gali lahaa qaybatan waxa laga eegayaa fan ID-ga haya kaarka tigidhka cid ka eegmayso sidoo kale waa lagu baarayaa si fiican lagu baarayaa ka bacdi waxa galaysaa tigidhkaagii baa meesha tan saaraysa saas u iska ka furaya gudihii garoonka intaadan gelin meel barxad weyn ah waa inaad eegatid geedkii aad garoonka ka geli lahayd marka geedkii aad garoonka ka geli lahayd markaa heshid hadda waxa u baahan tahay tigidhkaaga u baahan tahay anu geed 8 baan maaragtay ka gelayaa waxaan garoonka booska aan kaga leeyahay waxa waaye 527 faw lambar 6 baan ka leeyahay marka geedkaygaan ka geliyaa la khaldamayo banaanka alaab wax kasta aseeto cunto lama ogolo banaanka laga soo reebaya hadda gudii baan soo galay garoonku saas uu qurux badan yahay jaranjarada dheer buu leeyahay dad maaragtay taageerayaal calamadii maaragtay dalalkooda sida Jarmalka aan la sawiranayo oo kale to maaragtay oo aad la yaabay marka ay maxaa Germany baa ka imaaday oo maxaa ku raada xulkan taageersanahay oo khamiisya waxa laga tushay maxaa ku raada calankoodii oo kale to marka aad sida ay sheegeen dadka halkan ay ula dhacsan yihiin qadar qaabkay u soo dhaweynayso iyo sida u qiimeynayaan maxaa ku raada dhaqankooda iyo diintooda ay ugu adag yihiin oo kale ka bacdi garoonkii baan galay maxaa ku raadayay kursigayga waa kan waa fariistay garoonka ascaarkaas uu leeyahay garoonku aad iyo aad buu u qurux badan yahay waa garoono brand new ah qadar garoonada tan ma lahayn markii loo doortay inay koobka adduunka iyadu martigeliso bay garoomada dhistay waa garoomo wada brand new ah umana baahna marka koobka adduunku maaragtay u dhamaado waxayna qorsheynayaan marka koobka adduunku dhamaado inay garoomada tan ugu tabarucaan dalal kale to oo maaragtay ay siiyaan ma garan karo qaabka ay dalalka ku kala xuran karaan waxa jira garoomo la fufuri doono oo loo qaybin doono ilaa dhowr dal oo maaragtay hafaaf loo kala siin doono oo dalalka marka la geeyana bacdama garoomada tan ay qaadaan 70,000 80,000 100,000 aniga hadda garoonkan caawa waxa daawanayay 68,000 oo qof daawanayay marka garoonku waa garoon aad u qurux badan waxaan aad uga helay garoonka marka nalalkiisa la damiyo markaas wuxuu yeelanayaa qurux ashcaar aan laga hadli karin buu yeelanayaa saa u jeedaan hanaan haybad kaal iska arag ciyaartu waxay ku bilaabataa aniga waa markii ugu horeysay been ma sheegi karo oo aan garoon tago oo kubad ka daawado anu reer kubada daawada miihi ciyaarta kaliya ee kubadda cagta ee daawado waa World Cup kana waayidii hore fursad uma helin inaan aado kana igu soo horeeyay tiimamka maxaan ku raahdaayay hadda magaalada Dortmund la dhaho oo aan agteeda deganahay oo kale to naadi weyn ee leedahay garoonkeeda waa la iska galaa si fudud lagu gali karaa maxaan ku raahdaa waa naadi aad u culus waligay ma tagin Bayern saasi lamida dalal kale oo Yurubana warkooda ciyaaraha kubadda cagta xataa TV-ga kama daawado World Cup kaliya aniga daawadaa marka aadaan ugu maqsuuday aadaan uga helay runtii xamaasad dareen gaara maxaan ku raahdaayay u maleeymayo hadda wixii ka dambeeyay ciyaaro World Cup oo dambe oo idaafi doona inay jiraan aad baan runtii uga helay
uguna maqsuuday qaabka maxaa ku raadayay ciyaaraha loo qabtay qaabka nidaam kale dadku u wada joogaan la isu jiireyn la isu buuranayn garoonka marka waxa lagu bilaabayaa marka horeeto naadiyadii wax xulalkii baa yimi ciyaartooydii cabaar bay ciyaareen ka bacdi xaflad weyn la sameeyay koob weyn baa la soo jeeday war waxa ay ma koobkaasi ku guuleysanayaan oo kan diyaaradima qaadee ma doon baa loo saaraya mardama la ishigo waxa kan waa iska tusaale koobku waa koob caadi oo la qaadi karo marka labadii calana meesha la keenay calamadii waaweynaa heesii qaranka loo istaagay waxa cajiib ahayd heesta maxaan ku rahdayay calanka Spain baa la horshiday marka aanu ma istaagin ma hal mar hareera ay MCMA dadka Jarmalka cid hartay male markaasaan iri ormeesh ka kac markii hore Spain si ma u yara diidana ka bacdi markii heestii Jarmalka la shidayna dadkoo dhan way wada taagnaayeen cid fariistay ma lahayn ixtiraam macna sida la isugu hayo kursiga xagga iga xiga waxa fadhiyay nin Ingiriis ah fadhiyay wuxuu igu yiri anigu Spain taageersanahay waligeyna hadii Jarmal uu ciyaarayo qolada la ciyaarayaan baa taageeraa markaan ku iri Soomaali baan ahay wuxuu igu yiri waxa faamos oo maaragtay aan aad uga dambeeyaa ninka la dhaho Mo Farah oo runtii abu yiri ordiyahanka maxaan ku iraahday qofkii macnaha horumarka ugu weyn sportiga Ingiriiska ka sameeyay ninkaas si gaar ah baa isu aqaanaa baan dhahnay intaas maaragtay xidiga dhibca ka qaatay marka ciyaartii baa bilaabatay waa u jeedaan wadnahan farta ku haynay waa yaabanayn waxaan jeclayn maaragtay anagu inaan badino goal aan la horumarnay runtii marba xataa meesha ka dhici lahaa farxadii laakiin waxa la yiri waxa weeye goolkaas waxa weeye offside miyaa la dhahaa ku jiray baa la yiri baladu ka bacdi mid bay naga dhaliyeen xaaladeedu waa xumaatay waa bareejeynay bareejada Jarmalku fursad badan uu ku leeyahay hadii kale oo galabta ay Spain naga badan lahayd de xulkana baska garoon ka soo qaada airport ka geey lahaa anna faleega ku xiga inaan fuulo baan ku qasbanaan lahaa qadar si joogid bay iga rabtay laakiin alxamdulillah hadda rajo weyn baa leenahay insha Allah taala inuu xulka Jarmalku guuleysto ama marka u yartahayna kooba kan meel fiican ka gaaro baan rajeynaya hadaysan qaadino anoo dhinaca hay aanan Berlin ana kala digin marka garoonku saas u habaysan yahay lagama sheekeyn karo tigidka marka qofku inuu garoonka galo oo ciyaarta garoonka soo daawado wuxuu u baahan yahay tigid buu u baahan yahay wuxuu kale u baahan yahay hayakar waa fan ID iyo tigid hadaadan isku wadan tigidku ku shaqeyn miyo hayakarka ama fan ID-ga kaligiina kuma tii kartid marka labada waa ina isku heshid tigidka qaabka lagu helo waxa waaye iyo qiimahan ka bixiyay marka idin sheego tigidka waxa lagu helaa waxa weeye waa inaad page-ka FIFA ka iibsato marka page-ka FIFA hadda waxa weeye waa saxmad badan waa adagtahay inaad ka heshid ciyaaraha oo dhan tigirradooda hore baa loo sii goostay dad baa goosta oo ka ganacsada sida kaliya hadda ugu badan oo aad tigid ka heli karto waxa resell qof hore tigirra badan u iibsaday inuu dib u iibinayo website badan lagu gadaa jira page-ka rasmiga ah ee FIFA waa lagu gadaa iyadoo maartay tigidka dib loo gadayo marka waa laga macaashaa qof tigid uu ka bixiyay 200 oo euro ama 300 oo dollar buu hadda $100 $500 oo siisanaya ciyaaruna way kala adag yihiin waa kala xamaasad badan yihiin ciyaaro aad ku heli kartid $200 oo dollar baa jira kuwa aad ku heli kartid maxaan ku iraahdaa 300 baa jira kuwa aad ku heli kartid baa jira hadda ciyaarta anigu tigidkeeda markaan gadanayay kuraasta qaarkood meelaha qaarkood 12,000 oo dollar baa xataa ku qornayd tigirada qaarkood tigiradu waa kala qaalisan yihiin meesha fariisanaysa ku xiran tahay maaragtay waa kala aad u kala qiimo badan yihiin anigu marka tigida kan waxaan ka bixiyay 947 euro baan ka bixiyay tigidka waa almost $100 oo dhow hadda eurada wax yar ee dollarka ka qaalisan tahay intaas aan ka bixiyay laakiin tigidka qofkii iga gaday waxaan ka iibsaday maxaan ku iraahdaayay FIFA ka iibsaday resell buu ahaa qofkii aniga iga gaday lacag ka yar buu markii hore ku soo iibsaday laakiin aniga intaas iga sii waa la kala macaashaya tigid hore aan u haystay oo ciyaar aan ka soo gaari waayay oo dhex mareysay Jarmalka iyo Japan dhex mareysay taas bishii October aan goostay anoo Jarmalka joogan goostay taas waxaan ku goostay 192 euro inay ahayd baan u maleynayaa aduu 200 iyo xoogaa dollar bay ahayd laakiin tan aaday maaragtay uga qaalisanayd tigida kana tigid resell u ahaa kaaliftigiisu xataa resell buu ahaa hadda tigid macnaha qof iibsaday uu dib u sii iibinayo marka tigiradu saas qaali u yihiin waa dhici kartaa inaa hesho ciyaaro maaragtay tigiradeedu 200-300 yihiin laakiin waa ciyaaraha aan qiimo badan lahayn hadda kooxo xulal la og yahay inay tagayaan
oo koobkaba laga cayrin maxaa ku ay ka hareen oo kale qiimo jaban aan ku heli kartaa laakiin marba marka dambaysa ciyaaraha tigiradoodu waa sii qaalisanaanayaan waxayna ku xiran tahay hadba booska fariisanayso ku xiran tahay marka ciyaartii jawi degan noogu soo dhamaatay markii ciyaartu dhamaatay waxaan islahaa waa la isjiirayaa hore ka bax si nidaam leh intii meesha aan joogayna waxay leedahay meelo ah ka soo qaadan kartid cafe lama ogola garoonka khamri laguma ogola laakiin cafe بيبسي شرابكي بيه وحول بقرونك ويا لندحل سالقو إبنيا حتى أضاف فردية أو كرسي فردية تد لو رجية أو كوكينية باجرة أو عميش أو إبسني سيد مركا قدر رنتي هذا وقت حضرتي مركا عيارته يسود دماتنا توي نبضون ونبتقليه اللي بنقوب حني نظام صن قف جيري يملأ قف وايجا مريء مارت إيبرنا لما جرو سيدي بانكرونك وصوب حني أنه مارتي أي ساعدوا أي تهاي أي كسرعته رنتي لبيت بنكي وحلا جرا بسسكي بان سوق هذه بسسكي مركن سوق هذين حافظي اللوزيل أنا كينين ترينك كسر راعي كورجي وحن جاري لبذي حلي أي تهاي سوقه وحكسي عني عبارة سي مري مركا ما أنتنا فلوجيني انت سوينو كردين هاي واشين عليو كاعو سنيا فيديو جينا سي شير كريسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haddii aad ku nooshahay Yurub iyo Ameerika waxaan kuugu bishaaraynaynaa in application-ka Payc uu kuu fududeynayo inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada waxaad kala soo degi kartaa App Store-ka ama Play Store-ka telefoonkaaga gacanta haddaba maantaba kaga maaran faylalkii dhaadheeraa ee waqtiga ka lumi jiray ee xawaalada